magaalada Saylac ee ka tirsan xarunta gobolkaasi Salal ayaa waxa xadhig loogu geystay wariye ka tirsan warbaahinta gobolkaasi Salal oo lagu magacaabo Ali Xajar waxaana xadhiga u geystay wariyahaasi mas'uuliyiinta laamaha ammaanka ee degmadaasi Saylac iyadoona lagu xiray warbixin uu ka sameeyay ciisifa sharci darro ah lagu geynayay dalkaasi Jamhuuriyadda Djibouti haddaba waxa khadka telefoonka nagula soo xidhiidhay ehelada Ali Xajar isagoona looga warbixiyay qaabka ay wax u dhaceen iyo sababaha loo xiray wariye Ali Xajar oo soo soo warama telefishinka caalamiga Star ee magaalada Saylac xarigaas wuxuu dhacay walaalo in laga furo meel birisho la yiraahdo oo la yacadiyo Saylac dhexdeeda oo dalka Djibouti loo guro haye dalka Djibouti loo guro shalay soo warbixin ka soo diyaariyay ma garanaysaa sax marka maantaan markuu shaqadii uu shalay soo dhamaystay maantaan inuu war soo diray la doonayay saaka aroortii baa lagu tagay xaafadii magaalada ka deganaa gaari askara sidii aan kameradiisii aan taliyaha meesha taliyaha sandiga Saylac oo kamaradii ka qaataan waan gartay marka hadda Ali Xajar uu xiran yahay oo waa la xiray Ali Xajar uu ku xiran yahay sandiga Saylac wax cunto iyo wax wasaadigiisa oo loo diiday صح marka waan gartay waxaad kamid tahay ehelada cali la dhashay ee walaalkii Soomaa oo walaalkii baa tahay walaalkii baan ahay ina loo dalo waa la diiday ina cunto la siiyo waa la diiday min taliyaha sandiga Saylac ayay yaa waqti xaadirkiisa la kamaradiisii haysto waan gartay Ali Xajar dhowr jeer baa la xiray oo ay ciidanka boolisku ay xidhxidhaan ma waxa loo diidan yahay inuu xaqiiqada soo tabiyo Ali Xajar walaal saaba loo diiday wariyaashii kale lacag baa la siiyay isaguna wuxuu lacag ma doonayo waan warkaa waan dirayaa dawladda Djibouti dawladda Soomaaliya ciidan in ilaa 4 bilood way dilaadii la guraaciga marka warbixin uu ka soo diyaariyay warbixintu markuu maanta soo diray islaamiyay shantii aroornimo ayaa gurigiisa laga qaaday waagan marka ciidan la gurayo ee la boobayo Djibouti waa loo diraa soo ma sifa sharci darro loo qaataa dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa laga dhisaa weliba qandaraaskii uu dhamaanaya qandaraas inta ka sii badan baa yaa ku jiray sirana la soo kala saxeexday waa sax waay aad baad maasantahay maamulka gobolkaasi Salal iyo mas'uuliyiinta laamaha ammaanka mar aanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay ayaa noo suurtagal weeyday waa nuxkada telefishinka caalamiga Star magaalada Buurama